wasiirka xafiiska dakhliga deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Cabdi Cumar oo warbaahinta deegaanka la hadlayay ayaa sheegay in dadaal badan la geliyay si looga midho dhalin lahaa qorshaha dakhliga ee rubuca koowaad kaasoo ka badan 24.53 dakhligii rubuca koowaad ee sanad miisaaniyadeedkii hore ee 2016 dakhliga ay qorsheynay rubuc ahaan ay rabnay inuu soo xaroodo wuxuu ahaa dakhli dhan 4 bilyan iyo 400 milyan dakhligaasi wuxuu ka soo kala xaroonayay heer deegaan heer degmo iyo heer maamul magaalo dakhliga waxa inoo soo galay oo inoo soo xarooday dakhli dhan 3 bilyan 842 milyan 349,980.24 boqolyahaana ka noqonaysa boqolkiiba 87.34 percentage bay noqonaysaa runtii dadaal badan baan sameynay laakiin haddana qorshaheennii weli waxaan u sii baahanahay inaan dadaalka sii xoojino oo aan dadaal badan aan sii sameyno meelaha degmooyinka iyo maamul magaalooyinka laftoodana ay culeysyada macnaha gaabisku ka jiraan inaan xoojino ayaan qorshe u qaadanay dakhliga markaan sii kala saarno degmooyinka waxaa looga baahnaa 879 milyan oo dakhliga soo xaroodaan waxaa soo xarooday 750 milyan oo dakhliga taasoo ka dhigan boqolkiiba 85.35% halka maamul magaalooyinka ay u qorshaysneed in la soo ururiyo dakhli dhan 636,378,601.44 waxa suurtagalay oo la soo ururiyay 462 milyan 143,693.21 boqolay markaan u celcelinno waxay noqonaysaa boqolkiiba 72.62% waxa ka dhigan tahay culayska ugu badan iyo meelaha aan doonayno inaan xoog saarno waa maamul magaalooyinka oo qorshaheedii iyaguna aad ugu hoos maray dakhliga kalena wuxuu ahaa xafiiska heer deegaan waxa qorshaysneed inuu soo ururiyo dakhli dhan 2 bilyan iyo 884 milyan 280,824.75 bir waxa suurtagalay oo la soo ururiyay 2 bilyan 629,656 milyan 837.2 boqolyahaan waxay noqonaysaa boqolkiiba 91.20% marka guud ahaan deegaankeena 87.34% hay'adaha dawliga ee deegaankeena jira ee maamul magaalada ee degmooyin lana hadda waxay noqonaysaa percentiyadaasi kala noqonaysaa marka qorshaheennii weli maynaan gaarin laakiin dadaalo badan oo ay sameynay waxaan ku guulaysanay inaynu halkaas soo gaarno maadaama sanadku bilow yahay waxaan noo qorshaysan haddii la yiraahdo in qabsoonka dakhligu inuu sidiisa ugu yimaado annagoo ku dadaalayna in meelihii warbixinta markii aan qiimeynay ay dowladolooyinku ka jireen inaan dowladolooyinkaasi ku sii dadaalno si kale haddii aan u nidhaahno inta badan barbardhig baa loo baahan yahay si aynu ogaano korkaceen siduu yahay inaynu korkac fiican oo ku jihaysan qorshaheennii aynu gaari karno uu jiro iyo inuuna jirin inaan isagana cabirno oo sameynay waxaan isbarbardhignay 2016 sanadkii ka horreeyay kwartarkii koobaad dakhligii aan soo ururinay iyo 2017 kwartarka koobaad dakhliga la soo ururiyay dakhligaasi waxa korkac baa jira boqolkiiba 24.53% boqolkiiba 24.53% ayuu rubucan 2017 ka aynu kor uga kacnay 2016 amount lacageedna haddaan idhaahno waxay noqonaysaa 756 milyan lacag ka badan ayay labada rubuc isdheer yihiin marka la isbarbardhigo inta kale wasiirka ayaa furay guud ahaan maamulada gobolada maamul magaalooyinka iyo sidoo kale degmooyinka deegaanka inay xoog saaraan sidii looga soo dhalaali lahaa doorkooda kaga aadan dakhli soo ururinta oo qorshay sanadkan in la soo xareeyo marka maamulada degmooyinka maamulada gobolada iyo maamul magaalooyinka aad iyo aad waxaan ugu dardaarmaynaa inaad xoog saartaan in dakhligaasi sanadkan aynu qorsheynay iyo ku ka dheeriyada aynu soo saarno inagoo u marayna isticmaalayna shuruucihii bayaanadii iyo xeer nidaamkii loogu talagalay inaynu marno marka dawladnimadeenu waxay xoogaysanaysaa oo awoodaysanaysaa nabadgelyadeenu sii adkaan doontaa markaynu dakhligeena aynu sidaynu u baahannahay iyo sidii loo qorsheeyey degmo walba qoondada dakhliga taalo inay kor soo kacdo mustaqbalka dambe xataa korriin dhaqaale oo degmooyinka iyo deegaankeena ka dhaca waxay keenaysaa baahiyaha badan
ka jira markaynu hoosta u dhaadhacno degmooyinka inay degmooyinku iyaga laftooda ka jawaabi karaan. gudoomiye wasiirka ayaa waxa ugu baaqay canshuur bixiyaasha iyo sidoo kale bulshada inay doorkooda ka qaataan soo ururinta dakhliga sanadkii la qorsheeyey 2017. arrinta kale iyadana waxaan u dirayaa cashuur bixiyaasha muwaadin cashuur bixiye inaad cashuurta bixiso waa waajib dastuuri ah oo inaad gudanayso waajibkii ku saarnaa dastuuriga ah. waxaa cashuurta la ururiyo ee lagaa qaado wax lagaga bedelaa baahida bulshada ee leenahay waa mushaarka askariga sugaya nabadgelyadeeda inaad ganacsigaaga haysato waa mushaarka askariga colaadda kaa ilaalinaya ee ku hortaagan waa mushaarka macallinka iskuulka jooga waa mushaarka xirfadlaha caafimaad ee hosbitaalka inoogu adeegaya dakhligana aynu ururayno muu ka imanaya. marka muwaadin adiga laftaadu door baad ku leedahay horumarka deegaankeeda. haddii cashuurtii kugu waajibtay aad xilligeedii iyo goobtii aad cashuur bixiyaha ahayd aad ka bixiso waxay ka dhigan tahay door muhiimaad ka qaadatay in deegaankani horumar uu gaadho. marka muwaadin markastood cashuur bixiso waxay ka dhigan tahay waxaad wax ka qabatay tallaabo hore ugu qaaday in deegaankaaga iyo dadkaaga aad baahiyihii jiray wax lagaga qaban karo.